afhayeenka Maakhir State of Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay degmadani badhan ee gobolka Sanaag Mukhtaar Xamuurad oo in muddo ah ku maqnaa safar dibadda uu safarkiisa ku gaaray dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka aynu jaarkanahay ee Itoobiya maanta markuu soo gaaray degmadani badhan ee gobolka Sanaag ayaa wakaaladda Cashuur Media ay ku booqatay gurigiisa waxayna wax ka weydiisay safarkii uu muddada dheer dalka dibaddiisa uu ku maqnaa Cashuur Media waad mahadsan tahay booqashada aad iigu timi hoyga aan ka deganahay magaalada madaxda Maakhir State ee Badhan dhammaan marka hore ilaahay baa mahad leh ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waan salaamayaa markaan su'aashaada u soo noqdo anigu muddo hadda 3 bilood ah waxaan ku maqnaa dalka dibaddiisa dalka aynu jaarka nahay Itoobiya ayaan runtii hawl shaqo u tegey hawshaas oo ku saabsan arrimaha Maakhir waana ilaahay mahadii waxyaalo badan ayaa iga soo qabsoomay dhanka kale Maakhir arrinkeedu meel wanaagsan ayuu marayaa maanta waxaa xingalool lagu soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha Maakhir halkaas hawshaasuna way socotaa marka rajo aad u wanaagsan ayay reer Maakhir qabaan dhalinyaradii reer Maakhirna waxay u soo jeesatay aayahooda inay ka tashadaan arrimo Maakhir waan u tegey meesha jaaliyad baa joogta jaaliyadda Maakhir baa joogta dad baa jooga runtii aad iyo aad ay ugu weyn tahay Maakhirnimadu ugu weyn tahay dad aad iyo aad runtii u jecel inay dhibaatada dalka ka jirta gaar ahaan mandiqadeena ka jirta sida ay uga bixi lahayd ayaa jooga marka talo iyo tusaaleba waa ugu tagay waayo guddoomiye hadda waxaa sheegtay in guddoomiyihii maanta Maakhir uu joogo degmada Xingalool ee gobolka Sanaag socdaalkan hadda guddoomiyuhu ku marayo deegaamada Maakhir mooyaane bulshada degta reer Maakhir oo dhan ma ka wacyigeliseen sidii Maakhir loogu taagi lahaa dabadeeda horta Cashuur Media waxaan kuu sheegayaa caafimaadku qof marka uu xanuunsado markiiba caafimaadku wuu soo dhuukiyaa baa layidhi cudurkuna wuu soo boodaa caafimaadkuna wuu soo dhuukiyaa reer Maakhir way soo caafimaadayaan waxyaalahii uu oran jiray si yar baa loo soo noolaanayaa wasiirka Xamse oran jiray ra'iisul wasaarihii Xamse si yar baan u soo noolaanaynaa hadda si yar baan u soo caafimaadaynaa Maakhirna waxa weeye waa wax jira waa maamul jira laakiin u baahan in sare loo qaado oo la tayeeyo marka socdaalkan uu guddoomiyaha ay ku marayaan iyo wafdiga la socotay guddidaas waa guddidii la magacaabay oo xamar lagu magacaabay waa soo dhaweynaynaa anagu haddii ka afhayeen ahaan anigu waan soo dhaweynayaa diyaarna waan u nahay magaalada Badhan haddii ay noogu yimaadaan inaan kusoo dhaweyno waayahay afhayeen waxaa jirta baryahan inay jirtay in deegaanka gobolka Sanaag ee reer Maakhir laga qodi doono macdan buuraha Calmadow xeebaha gobolka Sanaag arrintaas iyada maxaad ka waraysaa maxay reer Maakhir kaga tashadeen wallahi qodobkaas waa aad iyo aad waa su'aal aad u wanaagsan baad weydiisay oo loo baahan yahay sababtoo ah in la ogaado bal wixii aan anagu ka qabno haddaan nahay maamulka Maakhir wixii uu arrinkaa ka qabo inay bulshada ogaato Soomaaliyeed ogaato
caalamkuna ogaado waa wax loo baahan yahay. waa jirtaa macdan qodis way jirtaa. maamulka Puntland madaxweynaha uu ka yahay Siciid Cabdullaahi Deni heshiisyo ayay la soo galeen sharaa'ig ajnabi ah ayay la soo galeen, waana wax cado qoraaladooda la ogyahay. cidda waxaan dibadda ka reexaysana waa la ogyahay. dhulka la rabo in la baaro oo macdan lagala soo baxana waa la ogyahay heshiiska lagu galay. in la rabo in ciidamo la qorto ilaaliya waa la ogyahay, wax qarsoon ma aha. waan maqlayay maamulka Puntland rag ka tirsan oo maalmaha dhexdaas ka hadlayay media oo lahaa waxba kama jiraan oo maamulku wuxuu qaadanayaa maamulku cashuur buu ka qaataa iyo waxaas. waxa weeye dadka baa loogu sheekeeyaa wax magaradka ah. waxa weeye maamul cashuur qaadanaya ma jira, maamulku wax oo dhan buu qaadanaya. maalintii soo saaraya dad bayna kula heshiiyeen, waxaas dad baa kala goosanaya. inaguna waxaynu ka helayno oo maamulka maakhir ka helaya ama dadka reer maakhirba ay ka helayaan ma ay jirto. nimankaa la heshiiyey sharaa'igaaba waxaan qaadanaya iyaga iyo shirkadaha ay la soo heshiiyeen baa waxaas, iyo intii markaa dee hadda u sacabtumaysa sida dadka hadda dee madal hufinaya ee leh waxaas waxba kama jiraan iyo anigu ma ogin iyo kuwaana wax yar baa la siinaya. yani runtu waa sidaa weeye. marka arrinkaas waa arrin khatara weeye, waa arrin u baahan runtii in laga hortago u baahan. macdan dhulkeenna ku jirta Soomaali oo dhan baa leh, waxay u baahan tahay si nidaamsan. haddii cidila soo baxaysana in annaga talada nala weydiiyo weeye. dhulkan annaga iskale, ilaahay annagu nagu beeray, dad kale in talada la weydiiyo weeye. ma aha dhowr nin oo mandiqada ah in lagala tashado oo xoogaa loo tuuro. waayo maadaama tahay afhayeenkii reer maakhir, idinku bulshada ma ka wacyigeliseen mase kala hadasheen haddii la soo saarayo macdan tahay haddii aan soo saarinba? bulshadu waa og tahay, waa loo sheegay. miidiyaha dhowr jeer baa loo mariyey. dadku qurba joogtahay xataa arrinkaas aad bay uga hadleen. haddana runtii waxaad moodaa in arrinkaas laga gaabinayo xagga reer maakhir aad uga gaabinayaan. arrinkaas waa arrin jira, waa arrin cad weeye. waxyaalaha annaga runtii aan rabno inaan xoogga saarno waxay tahay in arrinkaas fashilmo. waana fashilinay already, arrinkaas waa fashilmay. haddana miidiyaha anigu waxaan u marinayaa maamulka Puntland, waxaan u marinayaa meeshan sida aad doonaysaan noqon mayso. dad waa baynu nahay. maamulka waxaa ku jira dad mas-uuliyiin ah baa anaga nagaga jira maamulka Puntland. wax eebana anagu oran mayno sababtoo ah waa dadkayaga. laakiin dadkayaga waxaan leeyahay oo ragga halkaa maamulka ku jira waxaan leeyahay war waxa weeye wixii danta reer maakhir ay ku jirto ka shaqeeya ha u shaqeynina dan kaleeto ha u shaqeynina oo nin kaleeto ha u shaqeynina war wixii aan idin qabanayn waxaad tirahdaan waxna qabta ma aha, waxaasu nooma cuntamaan. dadkiina ha siisanina wax yar, dadkiina mushaar ha siisanina. ilaahay baa faxan, ilaahay waa bixiya. ninkii halkaa ka shaqeeyo mowqifkaaga cadday hayse oran biil baad waayeysaa, biil waayo maysid. maclintaasaad leedahay, waxaasun baad adigu maamulaysaa. idinkaa noo kaaleya, maamula idinku. maamulkana nala dhisa, kusoo biira maakhir, kusoo biira oo kaaleya oo macdanta idinku soo saara, la soo baxa. laakiin nin kalaan la shaqeynaya oo waa kaa iyo horboodaya wax saxan ma aha, waxaynu hore u arki jirnay ma aha. markaa qodobkaana ha la ogaado.